warkana dhiilada barakaca iyo abaaraha wata ee ka soo yeeray degaanka FARDALAGU XIDH ee degmada Lughaya waxa uu gabi ahaanba afarta dacal ee degmada Lughaya ka dhigaya mid u xubsiibatay barakac iyo abaaro isla markaana ilaa waqti xaadirkan aanan hayn gargaar ku filan dadka degaanka FARDALAGU XIDH ay booqatay kamarada telefishinka Hoon Cable TV waxa ay ahaayeen kuwa ay duruuftoodu aad u adag tahay waxana ay ka dayriyeen xaaladda ay waqti xaadirkan ku nool yihiin maxay haydaanay meel kastaan ka nibin halka in shan soo dhaxday waa leenahay in laba soo dhaxday waa leenahay saddex soo dhaxday waa leenahay halkan ciyaarinimo keen reerna halkan ma fuus jirin halkan ma dagi jirin waa kaasoo de waxaana keentay abaar iyo naana iyo gaajaana keentay anagu dadka abaaro ku dhaceen baan nahay 4 sanadood geedi baan ku jirnaa iyo ma hayno beed ma hayno dawo ma hayno caafimaad ma hayno xanaynaa ba ma jirto dalka yagiyo degmayadna ilaa geerista ilaa carrawareen ilaa fardaha yahay diir wuu naga dhamaaday abaarta laba lixaadka aheed 20 jirka nagu dhacday biyo kolkaan weynay een baad weynay een geeda naarsanaan weynay iyo baxtootiga ku soo dhacay arrintan ayaa waxa sii adkeeyay Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo tilmaamay gabi ahaanba in abaaruhu ay yihiin kuwa gobolka Awdal oo dhan sahayday aad iyo aad bay abaartaas u daba dheeraatay wax kaalmo ah oo si rasmi ah weli gaarina ma jirto maantana iyadoo dhibkaasi haysto ayuu ilaahay mahadi meelaha qaarkood raxmaadkii uu ka da'ay oo roobkii uu ku da'ay iyagoo il daran roobkiina waxa uu keenay dhibaatooyin kale oo hadday tahay intii xoolihii u sii noolad oo bor ka qaaday dadkii oo ku dhartaday waxa kale oo Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo dadka deegaankuba qayladaan ka direen arrintan abaaraha Somaliland ee inta joogta barasa ma aragno xukuuma aragtay xog hayo ma aragno madaxweyne iyo ma aragtay hay'ado iyaga xukuma dadkayga waxaan uga baahanahay gurmad degdeg oo biyo oo baahiyo guriga marka waxaan ugu baaqanaa dadna madax dhaqameedyada in laga soo gaaro dadka wixii mucaawina ee holog loo heli karo gaar ahaan ganacsatada gobolada Awdal inay la soo gaaraan maarta gargaar bay u baahan yihiin Abdullah Ali Yusuf Hoon Cable TV Borama